assalaamu calaykum. aaway ikhlaaskii, aaway baraxtirnaantii. waxa uu ku leeyahay waxaan u go'ayaa cibaado bishaani ramadaan, sidaa darteeda waxaan ka tagayaa Facebook iyo WhatsApp iyo wixii la mid ah. kadibna waxaan kulmaynaa wixii ka dambeeyay intaas. maxaa kuu keenay cariirigan oo dhan? arrimahan dhan waad suubin kartaa adigoon qofna u sheegin, adiga oo rabbigaaga keli u sheeganaya. waxa ay ku xiran tahay baraxtirnaantaada iyo ikhlaaskaaga. waxa uu ku leeyahay waxaan ku aadanahay magaalada Makka si aan u soo guto cumro. haddana waxa uu ku leeyahay waan soo dhammaysanay cimradii, alxamdulillaah, asiga oo taleefanka korkiisa ku haaya. haddana waxa uu ku leeyahay waxaan ku aadanahay magaalada Madiina si aan u soo ziyaarano. aaway ikhlaaskii, aaway camalkii alla dartiisa loo suubinayay. arrinkan waxay ku xiran tahay baraxtirnaantaada. maxay kugu soo kordhinaysaa haddii aad dadka u sheegto misena aad dadka la wadaagto camalkii sirta ahaa oo idin dhexeeyay adiga iyo rabbigaaga? waxaa la yaab leh, haddana waxa uu ku leeyahay waxaan dhammeeyey qur'aanka 2 maalin gudahooda. wuxuu kaluu ku leeyahay waxaan soo dhammaystay 15kii hore ee Ramadaan, hadda waxaan ku jirnaa 15kii dambe ee bishaani barakaysan. kadibna sabir ayuu soo qaadayaa, wuu soo dhigayaa. waxa uu leeyahay kani waa guryaashii faqiiriinta guri ka mid ah, kuwaas aan ku dadaalnay wax badan wax u qabadkooda. haddana waxa uu ku tusinayaa cunto meel dhooban oo haddana uu soo sabirayaa. waxa uu ku leeyahay kani waa afurka ay noo suubisay ciddayda. qaarkood ayaa waxa ay ku leeyihiin xalay oo dhan waan soo jeeday, waxaan ku soo jeeday cibaado, salaatuleyl, alle ayaan u taagnaa. maxaad dadku ula wadaagaysaa? waa camal aad u soo kacday allah dartiisa si aad u suubiso aadna ugu hesho janno. waa camal aad u soo kacday wakhti saq dhexe ah aadna u soo kacday alle dartiisa, ee maxaad dadka ula wadaagaysaa? waa camal sir ahe. qaarkood ayaa sabir soo dhigaya, kadibna waxa ay ku leeyihiin kan waa tabarucaadkii iyo waxyaalihii aan dadka masaakiinta u suubinaynay iyo fuqaradii iyo dadkii wax u baahnaa. maxaa alle subxaanahu wa tacaala daraaddiisa loo suubiyey? subxaana allah, aaway camalkii la qarinayay. wallaahi maalinka qiyaama markii la tago, alle subxaanahu wa tacaala waxa uu ku leeyahay haddii camalkan aad u suubisay qof bini'aadan dartiisa ah ama qof kaleeta ama istustus, u raadsa ajarkiisa asiga qofkaas aad daraaddiisa u suubisay. alle agtiisana ajarka ma helaysid. daawade u camal fal allah dartiisa, ma ahan dadka dartooda. waxaan kaaga digayaa walaashaydii iyo walaalkaygiiyow in aad istustusiso dadka aadna ku faanto naftaada.